أستاذ عبد الحكيم وحكمي دي هاي دتك أساسي أورنتي شركة جوليستي أساسي مركو هرا وحنا ربنا بالينو نوقا شيكيو سيدي أو كوبيلابي حديدي كوبيلابتي عقبته أو لا كل ما يعلستيدي يسيد أوقب حي أيان ربنا بالينو سكوبا أو نولا وذاك أستاذ سودو أدبا ما سنت أدبا نوقف فرح سنة هاي مدل نوع عنا كلاينا كسوق قريب كلا وأي شوغان شيلكي يا مستقبلكي إفي ومدن الحيد فرحت قارة إيت هاي سؤال اللي ودي هدان قدر قالوا رمتي وحان سوق الشغالة قلي 8 سنة كهر أما 8 سنة كهر وحي هاي مركان سوق اللي شبيه لو كوني أفرتي سكندري مركان دمي سكندري مركان دمي وحان آدو قرر شوينا إنا جامعات دي بدأ آدو دالك باكستان خاصة وان حريستي مقدش أنا كحريستي وإيمي لكن وحان كقلن شبيه سومالي لان برعو waxaa dhacday ingiriiska waxaa ka dhacay tareen iyo waxba la qarxiyay niman Pakistan wax soo bartay marka waxay saameyn ku yeelatay ardaydii minxada u helaysay dalkaas in la joojiyo muddo marka qabtaas aan ugu dhacday xamar baan markaa ku nagaaday jaamacad loo kala galay isla markaana waxaan bilaabay shaqo aan ka ahay shaqaale fursad bay ahayd baan aan markaa aanan jaamacadda aadin markaas laakiin waan dibsanay in jaamacad dibadda aado injineer soo bartaan rabay laakiin runtii fursad bay ahayd halkaas aan markaa ka soo bilaabay journalism shaqo ama suuqa shaqadan ka soo galay waxaan shaqaalaha muddadaas 18 sano celcelis 5 sano 6 sano dhowr iyo 10 sano ilaa 2009kii waxaan dhihi karaa waxaan ahaa شقة أبورته شنتي إن شغال أبوراي وحسهلا ما لكن أستاذ عبد الوهاب شيء وحب عن تاجيس نمو يقرس كتور نمو ين الله ولا يابو ين كفاك عضو ولكن أدونا لقارها بقعام بدن أو أدق إن السمايسو أو أدق كيس بدن يالتو runtii suuqa shaqada iyo waxbarashadana totally way kala duwan yihiin waxaan isleeyahay waxay saaciday idinku bachelor baa dhameyseen inaan bachelor markaa dhamay oo waxa la libaaxnimana aqoon baa la xiriirta marka wax badan oo aan ka cabsanay ma jirin wax walba waxaan u arkay inay iska fududahay oo la sameyn karo alxamdulillah marka muddada dheer aan ku soo jirnay hawshaas wax badan halka lagu soo koobi kara maaha laakiin waxaan rajaynayaa inaan qaab su'aalaha wixii aad iga weydiisaan uga jawaabo waqtiga yar awgiis laakiin waxaan kaliya inay cadeynayaa inay suuqa shaqada taala iyo taad soo barateen farqi weyn u dhaxeeyo ay saxdaas ku jaahayn sida uu macallinku kelmadda ku tacbiiriyay oo yiri iska ilaawo waxa soo barateen waxaan dhihi karaa aad bay sax u tahay ma santiin marka waxaan rabaa inaan weydiiyo mudane Cabdixakiin maadaama safarkaadii maxaa la yiraahdaa intaad shaqaalaha ahayd iyo intaad loo shaqeeyo ahayd intaba marka la isku daro adiga iyo tiimka xadiid adoo fiirinaya marka way aragnimadii aad ka baratay safarkaadii shaqo dadka aad u xulanaysaan inay idila shaqeeyaan xadiid ahaan dabeecadaha iyo xirfadaha ugu muhiimsan oo aad isleedihiin waxa aad ku xulataan ay ka mid yihiin si ardaydaaduna isugu diyaariyaan maxaa ka mid ah ustaad waa mahadsantahay waa su'aal runtii muhiim ah si guud haddaan dhalinyarta oo nagu sawiro aqoonta shaqada ee suuqa baahan waa saddex wax oo la isku daray waa aqoontii aad soo barateen hoose dhexe sare ilaa bachelor ku dhigateen oo lagu daray khibrad oo lagu daray xog inaad suuqa xog ka hayso marka ma rabo inaan dhalinyarta Ahmed Shabiyo oo doonaya markay hadda dhameeyeen inay hore ka bilaabaan laakiin suuragal ma taas waxa ku guuleystaa waa wax aad u yar haddaad rabto hadda inaad shaqo bilowdo inaad guuleysataa very rare way laakiin waxaad u baahan tahay inaad experience qaadato ugu yaraan 5 sano shaqaale noqoto
waxaad jeceshahay inaad xog ka raadsato inta aad shaqada ku jirto marka 5 sano shaqaalanimo ah oo lagu daro xogta aad ka haysato waxaad rabtaa inaad ka shaqayso waxaad helaysaa aqoontii aad ku shaqo gali lahayd marka taas waa talada aan siin lahaa ardayda soo qalin jabinaysa haddii su'aasha aan dib ugu noqdo maxaa ku xulataan dadku markay noo yimaadaan ay freshka yihiin wuxuu ku odhanayaa sida maxamed sheegayey maxamed daahir waxaa u sawiran waa money oriented meeqaan qaadanayaa buu leeyahay marka waxyaabaha ku celina waxaa ka mid ah aad qaadatide maxaad taqaanaa waad rabtaa inaad igu shaqayso oo ku goosato qofku marka uu rabo inuu shaqaalo noqdo macnaha maxaan nidhi waxaad u baahan tahay inaad aqoon aad ku shaqaysatay hesho 3 wax samaynan dhihin aqoontii aad soo baratay lagu daray khibrad lagu daray xog marka inaad khibrad heshay waxay u baahan tahay inaad shaqaalo noqoto Soomaa shaqaale haddaad markaad rabto inaad noqoto ama mutadawacne ama tababar noqo ama shaqo caadi oo rasmi noqo markiiba waxa meeqaan salary qaadanaya buu leeyahay Soomaa haddii uu qofku arrinta xujo ka dhigto waxba baran maayo suuqiina ma soo geli karo anu mararka qaar markaan arko qofku aad uga hamuun qabo waxaan ku dhahdaa maxaa caqtiga qaadanaysaa taqaan shaqadeeda maxaa ka taqaanaa shaqada aad rabto inaad ka shaqayso maxaad ka taqaanaa illa tii qalinkaad ku soo baratay maaha anaa raba inaan wax ku baro markaan ku baro kadibna aad ku shaqayso markaasay slogan waxaa laga yaabaa inay dhahaan waa dhiig miirato annagana lagu shaqaysanayaa waa adoonsi waa bala reernima waxa lagu waxaasoo dhan laakiin sida saxda waxay tahay inaad ogolaato inaad zero ku shaqayso qofku markaad arko shaqadaada iyo performance-kaaga markuu arko isaga lacagta kula soo doonanaya lacagtii ama budgetkii loogu talagalay in qofka la siiyo waa diyaar laakiin waxaan rabaa qofkii goosan lahaa inaad noqoto